waxaanba dhammaantiin dareensannahay in ay nolosha caqabado badan tahay. waxaase mar weliba lagama maarmaan ah in aad xasuusnaatid halganka aad maanta ku jirtid wuxuu kuu diyaarinayaa awooddii aad berri ku wajihi lahayd, caqligii aad ku wajihi lahayd, kartidii aad ku wajihi lahayd, waayo aragnimadii aad ku wajihi lahayd, xirfaddii aad ku wajihi lahayd, cilmigii aad ku wajihi lahayd. noloshaada oo dhan waxaa ku socda dhisme loogu talagalay in adduunweynuhu dugsado, oo mid weliba uu u yimaado uu wax ka qaato uu wax ka barto. waxaadna naftaada ka ilaalisaa halka shay oo intaasoo dhan kaa burburin kara, kaa baabi'in kara, oo ah inaad naftaada dadka kale barbar dhigtid. waxaan kuu sheegayaa, dayaxa iyo qorraxdaba way iftiimaan, mid welibaana xilli ayuu leeyahay. laga yaabay inaysan maanta maalintaada ahayn, laakiin inta ka horraysa berri samir, dadaal, oo rajay berri waxaad jeceshahay in Ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ku siin doono. marnana ha quusan intay sababadaadu neefsanayaan. caqabad kastoo ku soo martaana waxay isu rogi doontaa farxad, waxaadna u arki doontaa tii naftaada dhisi lahayd.